السلام عليكم أصحاب تميل كستو دنيدا أكتشوكتان كسو دوادا channel كينا قلك عيارها دنيدا قضبضا عيارها عاوة في النمو أتكون مغلي دونتان وحا كميدا غارمو أيو أليكي سانشيز ديبوغو صولابان إياه كوحدا مانشستر يونايتد kooxda Arsenal oo xaqiijisay in afar ka mid ah xidigaheeda oo ku jiro Develus ay heshiisyo u kordhiyeen dhalasho wacan Lionel Messi wax ka ogo 7 rikoor oo gaar ah kabtanka Barcelona iyo xulka Argentina mid ka mid ah kubad abuurayaasha ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo baxsad ka ah Liverpool iyo wararka suuqa kala iibsiga ayaynu soo gudbin doonaa iyo kulamada laga ciyaari doono qaaradda Yurub caawa waxaan ila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdirashiid Rashka halkani waa galka ciyaaraha dunida fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan taabo subscribe like share gareene gambalaalkeena taabo si aad u hesho xog walba oo ku saabsan kubadda daafaha caalamka si aad u noqoto xogteena qofka ugu horeeya ee hela mar waliba dhalasho wacan Lionel Messi wax ka ogo 7 rikoor oo gaar u ah kabtanka Barcelona iyo xulka Argentina maanta oo kale sanadkii 1987 waxaa dunida ku soo biiray ciyaaryahanka u dhashay dalka Argentina oo lagu magacaabo Lionel Andre Messi Coutinho kaasoo xirfadiisu heerka sare oo dhan u ciyaarayay naadiga Barcelona waxa hadda dadka qaar ay ku doodaan inuu yahay xidiga ugu weyn taariikhda kubadda cagta oo dhan iska badda Barca ama La Liga iyaga oo cuskunaya tirada inta jeer ee uu ku guuleystay laacibkani ugu wanaagsan dunida maadaama ay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 33aad ee ka soo wareegatay dhalashadiisa waxaan idin la wadaagaynaa rikoorka gaarka ah ee Messi kubadda cagta ka saameeyay Messi waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan La Liga misana ugu saddexleyda dhaliska badan waxaa jira ilaa iyo 9 ciyaaryahan oo wax ka badan 200 oo gool ka dhaliyay La Liga balse 2 ciyaaryahan oo qura ayaa dhaliyay wax ka badan 300 oo gool halka Messi oo qura uu La Liga ka dhaliyay wax ka badan 400 Messi ayaa dhaliyay 440 oo La Liga ah kadib 477 kulan oo uu ciyaarayay Messi ayaa haysta rikoorka xidiga dhaliyaha goolasha ugu badan ee halka sano kabtanka Barcelona ayaa sanadkii 2012 waxa uu shabaqa duligay 9 gool oo ay 79 ka mid ah ay yihiin kuwa uu Barca u dhaliyay halka 12 gool oo uu dhaliyay qarankiisa Argentina 79 gool oo uu Barca u dhaliyay Messi waxa uu kala dhaliyay 59 La Liga ah 13 waxa uu ka dhaliyay Champions League 5 ayuu ka dhaliyay Copa del Rey halka 2 gool uu ka dhaliyay Spanish Super Cup waxaana haystaa tirada ugu badan ee abaalmarinta Ballon d'Or ee Europe Golden Boots Lionel Messi ayaa hoggaanka ku haya ku guuleysiga labadan abaalmarin oo ka mid ah abaalmarinta ugu qaalisan kubadda cagta ee ay ciyaartoyda qaadaan Messi ayaa 6 jeer oo kala duwan ku guuleystay Ballon d'Or waxaana 4 isku xigta oo uu qaaday inta uu dhaxaysay 2019 ilaa 2012 halka uu shaneystay 2015 waxa auna markii lixaad qaaday abaalmarinta kubadda dahabka sanadkii hore si taas la mid ah laacibkan ayaa haysta 6 jeer abaalmarinta kabta dahabka ee la guddoonsiiyo ciyaaryahanka ugu goolasha shanta horyaalka ee ugu waaweyn qaaradda Yurub inkastoo uu xilli ciyaareedkan booska lixaad kaga jiro kala sareynta loolanka kabta dahabka goolasha ugu badan ee xilli ciyaareedkan laga dhaliyay La Liga xilli ciyaareedkii 2011-2012 ayuu kabtanka Argentina dhaliyay 50 gool oo horyaalka dalka Spain ah isaga oo saftay 37 kulan waxa uu hantay abaalmarinta Pichichi Trophy ee gooldhalinta La Liga waana rikoor aan weli la jabin inkastoo kooxda Real Madrid ay La Liga ku guuleysigiisa ku garaacday naadiga Barca waa xidiga goolasha ugu badan ka dhaliyay wareega guruubyada iyo marxaladaha 16 ee tartanka Champions League saddexleyda ugu badan ee tartanka horyaalada Yurub Messi
ayaa wareegay gruubyada Champions League ka dhaliyay 68 gool halka wareega 16 uu ka dhaliyay 16 gool. Xidigan ayaa sidoo kale Cristiano Ronaldo la wadaaga rikoorka saddexleyda ugu badan ee Champions League waxaana ay dhaliyeen min 8 jeer. waa ciyaaryahanka koobka ugu badan la qaaday naadiga Barca. Messi ayaa 34 koob la qaaday naadiga Barca waxaana koobabkaas ay kala yihiin 10 La Liga ah, 4 UEFA Champions League, 6 Copa del Rey ah, 6 Super Cup ah iyo The Spain 3 ah iyo FIFA Club World Cup iyo 3 UEFA Super Cup ah ayuu ku guuleystay xidiga Lionel Messi oo ajnabi ugu hanashada badan La Liga. Messi ayaa 2 horyaal u jira inuu noqdo xidiga haysta tirada ugu badan ee hanashada La Liga iyadoo hadda uu rikoorka haysto Buco Gento oo ah 12 jeer la qaaday naadiga Real Madrid. In Messi uu haysto 10 jeer horyaalka La Liga waxay ka dhigtay inuu yahay ajnabiga ugu hanashada badan horyaalka dalka Spain. Kooxda Arsenal ayaa xaqiijisay in 4 ka mid ah xidigaheeda uu ku jiro David Luiz ay heshiisyada u kordhiyeen. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa xaqiijisay in 4teeda ciyaaryahan ee David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares iyo Dani Ceballos ay dhammaantood heshiisyada u kordhiyeen heerarka kala duwan. Xidigahani ayaa dhammaantood waxa ay qandaraasyadu dhacayaan 30 bisha June. Talaadadii waxa ay ahayd waqtigii ugu dambeeyay ee la isku afgartay heshiisyada cusub si loo sii hayo xidigahani ilaa ugu yaraan dhamaadka xil ciyaareedka 2019-2020. The Gunners ayaa kordhisay heshiiska amaahda ah ee Dani Ceballos ay kaga haysato naadiga Real Madrid inta ka hartay hal ciyaareedka halka 3 ciyaaryahan oo kale heshiisyo kala duwan la gashay. David Luiz ayaa saxiixay heshiis 1 sano ah oo ku sii joogayo garoonka Emirates Stadium halka 2 ciyaaryahan ee amaahda ay Gunners ugu haysato kooxda Villarreal iyo Southampton, Pablo Mari iyo Cedric Soares ay heshiisyadooda noqon doonaan kuwa joogto ah marka uu furmo suuqa kala iibsiga xidigaha. Labadan ciyaaryahan ee dambe ayaa ogolaaday heshiisyo waqti dheer ah waxaana loo maleynayaa in ay yihiin min 4 sano iyadoo heshiisyadu ay kooxdu ku sii hayn doonaan ilaa iyo sanadka 2024. Cedric ayaa weli kulankiisii ugu horeeyay u ciyaarin kooxda Arsenal tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Southampton bishii Janaayo halka Mari la filayo in uu dhaawac ku seego garoomada inta ka harsan xilli ciyaareedkan. Hormaayo Alexis Sanchez dib ugu soo laabanaya kooxda Manchester United. Weeraryahanka Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto Old Trafford bisha soo socota kadib amaahdi uu ku joogay Inter Milan. Ciyaaryahankii hore ee Arsenal ayaa inta badan la dhibaatoonaya dhaawacyo muddadii uu la joogay kooxda Antonio Conte waxaana uu kaliya u saftay 10 jeer horyaalka Serie A intii lagu jiray xil ciyaareedkii 2019-2020 inkastoo weeraryahanka uu si xun ugu dhex muuqdo waqtigiisii Talyaaniga. Inter ayaa la soo warinayaa in ay rajo ka qabeen in ay heshiis joogto ah la gaaraan Sanchez laakiin tallaabadaas ayaa hadda u muuqata mid toos u dhacday. Sida uu warinayo warsidaha Sky Italia ee Manchester United ayaa qorsheynaysa in xidiga reer Chile ku soo celiso magaalada Manchester United marka uu heshiiska amaahda ah ee kooxda tababare Conte u dhacayo 30 bisha June. Warbaahinta ayaa sheeganaysa in ay iyada labada kooxood ay weli tartamayaan hanashada koobka Europe League. Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka cabsi qabta in Sanchez uu sii xoojiyo fursadaha ay Inter ku guuleysato tartankaas. Sidaas darteed Sanchez ayaa lagu soo waramayaa in uu ku laaban doono Red Devils halkaas uu 5 gool ka dhaliyay 45 kulan oo saftay tartamada oo dhan ilaa iyo haatan. Mid ka mid ah kubad abuurayaasha ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo baxsad u ah Liverpool. Naadiga Liverpool ayaa akhbaar farxad leh helaysa kadib markii ay ogaadeen in xidiga qadka dhexe kubad kaga abaabula Bayern Munchen ee Thiago Alcantara uu doonayo in uu u soo dhaqaaqo Anfield xilli ay hakad galeen
wadahadaladii heshiiska kordhinta ee uu kula jiray kooxdiisa. Wararka imaanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in laacibka uu doonayo ku biirista kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League si uu ay u wajahdo loolan cusub maadaama uu 7 sano oo u ciyaarayay naadiga Bayern Munchen. Kubad sameeyaha reer Spain oo ay 1 sano kaga harsan tahay qandaraaskiisa Allianz Arena ayaa lagu soo waramayaa in uu hakad geliyay wadaxaajoodka uu kula jiray kooxda haysata horyaalnimada Bundesliga si uu ugu fikiro mustaqbalkiisa, iyadoo uu xusud mudan tahay in uu dhawaan heshiisyo cusub u saxiixay saaxiibadiisa Manuel Neuer iyo Alphonso Davies. Inkastoo uu yahay 29 sano jir, haddana Thiago ayaa doonaya in uu soo arko waayo cusub maadaama 7 xilli ciyaareed ee ku sugnaa Bundesliga oo kaliya kooxdiisa qaadanaysay. Waxaa lagu soo waramayaa in uu xiiso badan u hayo ka ciyaarista horyaalka Ingiriiska iyo ku biirista Liverpool. Waxa uuna saaxiibadii ogeysiiyay inuu doonayo in uu la shaqeeyo macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp. Hordhaca kulanka adag ee Real Madrid iyo Real Mallorca, Los Blancos oo doonaysa in ay guul ka gaarto si ay ula wareegto caawa hogaanka horyaalka La Liga. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa caawa qaabilaysa naadiga Real Mallorca. Kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee Spain, Los Blancos ayaa martigelin doonta kooxda Real Mallorca iyadoo maanka ku haysa in ay guul ka gaaraan oo ay ka filan doonto in ay dib u hantiyaan horyaalka La Liga oo kooxda Barcelona ay xalay si ku meel gaar ula wareegtay. Dhinaca kale, Real Mallorca ayaa waxa ay kulankani madaxa gelinaysaa Real Madrid iyadoo ay mid noqon doonto 3 kaalimood ee ugu hooseysa horyaalka La Liga, waxaana xusid mudan in kaliya 1 dhibac soo heshay tan iyo markii dib loogu soo laabtay ciyaarista kubadda cagta. Xaqiiqooyinka ciyaarta, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa guuleysatay 8 ka mid ah 10keedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay naadiga Real Mallorca oo tartamada oo dhan ah. Real Madrid ayaa la garaacin 15keedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga. Kooxda Real Mallorca ayaa ku guul dareysatay in ay guul ka gaarto 13 ka mid ah ilaa 14keedii kulan ee ugu dambeeyay oo horyaalka La Liga ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda. Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan 2 gool 4 kulan ee ugu dambeeyay oo garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga. Kulamada laga ciyaari doono caawa iyo saacadaha la soo gali doono ayaanu markani fiirin doonaa horyaalka ee La Liga. 5 habeenimo waxaa soo gali doona oo isfarasaari doona naadiga cadcadka ee boqorada Real Madrid iyo naadiga Mallorca. Sidoo kale waxaa jira kulan kale oo ka soo horeeya kulankaas oo soo gali doona 8:15 fiidnimo, waana Deportivo Alaves iyo FC Osasuna. waxaa sidoo kale isla waqtigaas 2:15 soo gali doona habeenimo naadiga Real Sociedad iyo Celta Vigo. saddexdaas kulan ayaa laga ciyaarayaa horyaalka La Liga. waxaan ku guda jirnaa kulamada horyaalada laga ciyaarayo qaaradda Yurub. markan waxaan u jaleeci doonaa dhinaca iyo Premier League. hordhaca kulanka adag ee caawa Liverpool iyo Crystal Palace. Reds oo hal talaabo u jirta hanashada horyaalka Premier League 30 sano kadib. waxaa garoonka Anfield oo la diyaariyay hanashada horyaalka Premier League hal toddobaad ka hor. waxaa kooxda Liverpool ay caawa qaabilaysaa naadiga Crystal Palace iyadoo maanka ku haysa inay hal tilaabo u jirto hanashada horyaalka Premier League. waxa ay Liverpool qalka u saaran tahay in ay sare u qaado koobka horyaalka Premier League markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990kii. iyadoo haddii ay caawa adkaato naadiga Crystal Palace xitaa aan u dabaaldegi karin hanashada horyaalka maadaama ay hal dhibic oo kale u sii baahanaan doonto. naadiga Reds ayaa kulankeedii ugu dambeeyay waxa ay barbaro garoonka Goodison Park kula soo gashay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton. laakiin haddii ay
kasoo adkaan lahayd kooxdaas caawa guul ay gaarto ayaa ugu dhignaan lahayd in ay horyaalka u dabaaldegto naadiga Liverpool. xaqiiqooyinka ciyaarta ayaan markayna fiirin doonaa. Liverpool ayaa ku guuleysan doonta horyaalka Premier League haddii ay caawa garaacaan naadiga Crystal Palace isla markaana ay Manchester City ku guuldareysato in ay Chelsea garaacdo habeen dambe. Crystal Palace ayaa ah kooxda kaliya ee tababare Jurgen Klopp kooxdiisa ku garaacday garoonka Anfield in ka badan hal jeer. Liverpool ayaa guuldaro la'aan ah 55 kulan oo ay horyaalka ku ciyaartay garoonkeeda, waxayna ku haysataa 45 guul iyo 10 barbaro ah tan iyo markii 2 guuldaro ah ay kala kulmeen naadiga Palace ee bishii April sanadkii 2017 waa Crystal Palace. markaana Fabinho ayaa safan kara kulankiisii kontonaad ee horyaalka Premier League. xidiga reer Brazil ayaa ku sugnaa kooxda oo guuleysatay 23 kamid ah halka 24 kulan ee Premier League ee uu ciyaaray Anfield. The Eagles ayaa guuldaro la'aan ah oo unbeaten ah dhammaan 9 kulan ee ay goolaliyaheedii sare ee Jordan Ayew uu gool u dhaliyay xilli ciyaareedkani waxayna guul ka gaareen 7 kulan halka ay barbare galeen 2 kulan kale oo kale. waa anigoo saaxiibkiina Cabdirashiid Axmed Xuseen Cabdirashiid Rashka oo nii leh sidaa iyo nooli kulante nabadgelyo.